gudoomiyaha cusub ee degmada Jallaqsi ee gobolkan Hiiraan Maxamed Nuur Cagajoof Dabash oo wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caali lagu soo magacaabay ayaa maanta tilaabadiisii ugu horeysay ka bilaabay booqasho uu ku tagay isbitaalka weyn ee degmada Jallaqsi maadaama uu isbitaalka dhismihiisu wanaagsan yahay haddana ma lahan adeegyadii aasaasiga u ahaa caafimaadka sida qalabkii loogu talagalay isbitaal dhaqaatiir ka howlgasha iyo daawada noocyadeeda kala duwan waxa uuna isbitaalka noqday mid iska xiran oo wax shaqo aysan ka jirin xilligan Maxamed Nuur Cagajoof gudoomiyaha degmada Jallaqsi ayaa ku baaqay in wax laga qabto baahida ka jirta isbitaalka weyn ee degmada Jallaqsi waxa uuna xusay in bukaanada iyo haweenka dhalmada ku adkaata loo qaado Buluburta iyo Jowhar marka hore waxaan u mahad celinayaa Somali News aad iyo aad aan soo dhaweynaa degmada Jallaqsi ku soo dhawaadaan leeyahay madaxda Somali News iyo shaqaalaheeda dhammaan u mahad celinayaa arinta hadda isbitaalka waa arin xasaasi ah waxaan leeyahay marka hay'adaha samafalka kuwa localka iyo kuwa international iyo kuwa dawliga ay kuwan dawliga ahayn waxaan ugu baaqaynaa isbitaalka Jallaqsi oo muddo xirnay haddana dad heer Jallaqsi oo silqaamay hadda saas xaaladiisa ka dhigeen waxaan leeyahay inaan ku soo dhawaadaan leeyahay shan shuruud la'aan cidii hay'ada oo u qabanaysa wax degmadaas shan shuruud la'aan ka maamulahan ku soo dhaweynina annaka waxaan leenahay waxa la wixii meeshan isbitaalkan wax u qabanayo waa shan shuruud la'aan isbitaalkan waxa ka dhiman matoorka waxa ka dhiman sariirihii waxa ka dhiman caafimaad mataqaana dhaqaatiirtii waxa ka dhiman daawadii dhammaan marka Hirshabelle gudoomiyaha gobolka madaxweynaha Hirshabelle ku xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenadiisa golaha wasiirada Hirshabelle dawladda federaalka Soomaaliyeed dhammaantan waa ugu baaqayna waxaan leenahay isbitaalkaas in wax laga qabto runtii degmada Jallaqsi waa degmo ka 9 kiiloomitir laamiga ka go'an qofka ku xanuusto hooyo ah amba maantay xaalad dhalma ay ku timaado amba xaalad kale ay ku timaado canuga carruurta ah roobku markuu doo kale dhibaato badan ka timaado marka dhammaan inta Soomaaliya danaynayso iyo dawladaha hadda aniga inoogu sakayso Hirshabelle gobolkan Hiiraan hadda ay ku abtirsato madaxweynaha uu ku yahay Maxamed Cabdi Waare waxaan leeyahay mudane madaxweyne isbitaalkan wuxuu u baahan yahay wax qabad sidoo kale gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda Ibraahim Madoobe Nuur ayaa dawladda federaalka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha ka codsaday in wax laga qabto xaaladda isbitaalka degmada Jallaqsi midda kale isbitaalku wuxuu u baahan yahay hadda maxaan ku raadaa baahidii caafimaad oo kala duwan haddii tahay takhtar hadday tahay daawadii haddii tahay dhinacyaha badan oo caafimaadka qaybihiisa kala duwan ambalaastii wixii la mid ah iyo matoorkii intaba waa u baahan yahay aad waliba oo maxaan ku raadaa ka geysay baarkii iyo wixii la midka ah intaba u baahan yahay cid waliba oo maxaan ku raadaa baahidaasi wax ka qaban karto waxaan leenahay walaalayaal arrintaasi wax nagala qabta oo horumarkii isbitaalka nagala shaqeeya haddii yihiin maxaan ku raadaa shacabkii shalay is aruursaday oo walaalahan haddii yihiin iyo haddii yihiinba maxaan ku raadaa hay'ada lookala intaba iyo haddii yihiin dawladda federaalka hadday tahay dawladda Hirshabelle intaba waxaan ka codsanaynaa in maxaan ku raadaa baahida isbitaalkana laga xaqabtiro ugu dambeyn waxaa xusid mudan in isbitaalka degmada Jallaqsi ay dayactireen qurbo joog u dhalatay degmada kuwaas oo la magac baxay midnimo Jallaqsi Cabdisalaan Maxamed Ibraahim Cabdisalaan Habi TV-ga caalamiga ee Somali News degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan